الكلام بساسي كل حريم نظرنا كل حريم نظرنا كباله من بلوك الكلام صباح wanaagsan saaka waxaanu ka toosnay hotelka 5 star-ka ama aadka wanaagsan ee xeebta ku yaala waxaanu ku toosnay dhawaaqa shimbiraha iyo dhawaaqa ay sameynayaan mawjadaha baddu marka halkan la seexato waxa kugu filanaya ilaa dhowr saacadood oo kaliya xalay waxaanu saxnay 12 barkii habeenimo iminkana saacadu waxa weeye 6 barkii subaxnimo maadaama jawigu sidoo degan yahay oo hawaduna ay sida saaf u tahay dhowr saacadood oo kaliya ayaa kaaba badan la daragi kalena waxa ku soo tooseen anaga wali hurda واللحدي بركي صباح نمو هدول كونية اللي هردا أنا جايو قداميها يا جماعتها بشير مرسل يطبعا علي الضوبية أيوك وكليا وليد توصني رغم إن مرة ولا تشوفها يا جماعة سلوا قدر حولي ما أنت قبل العين هدول كان ساكن وكتوصني حبت البحار وكقدوية هدول هذا كلا caalamka laga yaabo in adig iyo anigu aynu aragnay quraacda istabariya dabadeedna Bashiir Mursal oo maanta isagu gudoomiye ka hotelkan ayaa qof kasta u sheegaya hawsha uu qabanaya waxay tahay waliba cidii diidan wala ganaaxaya Bashiir sidoo qaybinaysa hawsha marka maanta laba qof ayaa naga jiifta hadeer midna wuxuu ku qorayaa xaabada كان كلام حكوا قريه إنه عاناه كدونه 2 كيلومتر يبرمن نوجرت جيل درس كيجا أو حبت دقيقة ودقيقهم بقى جيل حبت دبده كل جرا وهذا مورا ماله مال حوالها الوهاية ماله لكن جيل يجول وتربده أوكي وحتي من عاناه من حابده أنا جماعة حكوا قرن هاي كلوك قرن ماله هذا أنا وحال إذا كان صوب ضبي مكان أنا جارنتيد وحها أنا بدل العاس أنا أبنه لاش أنا كون قادم ويوزي أو فيش رود وحال الله وهذا قادر أنا الدنيا يا سبعين مكان باربيكيو هاي دبكة شيء أنا كلهم كانوا حنصارنا معلم هاي دبكة وحا good news الموس أنا سو حدني يقدر حبوا سبعيدة هاي بعض يجوا يدبرت everything is okay today بعد واحد نيجي الناس صورة قلا يوم نقون كرتو إن ما دام بدي يو جيل الله هيستو يظل ملك طلقة دونا إن أنت اللي يسكدبره bare construction guri qoyskaliyo qasri iyo mid weyn fooqyo qayb badan fiilooyin qurux qof kasta oo arkaa u qushuuco iyo injineero qalin ku qorsheeyo oo qolqolkeena iyo qaarad kale ka yimi qunyaraan markay qotanshaan dhismaha qalbigu islaam quraarad ba qaraskuna uu yahay mid ku qaayiboon qasnadaada marin
qaboonadan hadday qoondaysay bare orod oo qabo qaradkaaga sheeg iyo qaab dhismaha bare construction oo laama kule dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaad ka helaysaa dhismayaal caalamiya oo aad iyo aad u qurux badan hore u gaadh oo hamogaanin kala xidhiir telefoonada qoraalkooda ku muuqanayo marka cadayga aad dhamaystid sida magaalooyinka la sameeyo halkan uma baahnid inaad shaawarka gashid ama aad maydhatid oo keliya badda waa inaad ila gasho subaxdii maadaama dabaashaan aad isugu fiicannay halkaasa saaka ka bilaabayaano ساكن تيجي دبان شو برميسي إن كانوا بدك يسووا بحمي لكن رجل كم يدي هاي خالد يجي ساكن ساكن في أقل كم نسشلا وكراسي الدبيعي جا اللوجو تلاقي دفع تبعون يصير قليل وسقو أنا جاي بشير مرسل وأركيسين بدأ إنه كتشري كي خالد باللوجو تاجلا هي إنه طبعشوا لكن وحويش هاي أنا وحكرنا قرن معيه إن أنت أنه هرودني وبدك علي خالد قرب هذا مركز بدك شيء نيو بدو وحان قال صباح نمدي لبي تمكي برك دباش سيسكتين دباش نيو واتا هدا يمكن يببرا هذيك لبدي نب هاي هذا ما نتفسي أنا جيدا وضياش ومركله تبغى قصة بحدر خالد هل كانوا كله oo sidan oo kale u cidlaa oo aad kalidaa iyo asxaabtaaduna ay joogtaan dhulka Soomaalida hore ma ugu aragtay may waa markii ugu horeysay waxaan hubaa in meelo fara badan oo caalamka aad martay maxay kaga duwan tahay baad oran leed bulxaar waxyaabo badan kaga duwanto xeeb weliga masaxan waa markii ugu horeysay oo muddo xeeb saxdo laba cishaan saxdo yaa iyo laba maalmood iyo labada maalmood ka dhiga tagay waxaan baa la yiraahdaa war Cabdiraxmaan yare wali war haadeer wallahi alxamdulillah cabsalan aad baan u fiicanahay de kulle meesha markay joogu wacan yahay baddu dhacayso leedu dhacayso de shaqada qabanaysa ma ku daalayso kamarada marka kale markaan saacadu waan tuuri jirnay ima habeenkii barkin baan ka dhiganaa maxala ma sha Allah Cabdiraxmaan waxaad ii sheegtay inaad deegaankan hore u timi oo shaqo aad ka qabanaysay markan iyo mararkii hore maxay ku kala duwantay wallahi markii hore waxaan soo galnay subax hore isla duurkiiba labadii duurnimo waan ka baxnay laakiin badan iyo waxaan ma arag intan qadiimiga tagnay one picture kaga soo qaadnay wafdi la soconay markiiba dhaafnay laakiin hadda ka hor inaanu xeeb seexano
nolosheeda hurdadiigu macaanid baa imaka saxdaan baan idhahdaa ama malaa caadiya saasaa la sheegaayo dhulka joogga badda ku dhararan waa meelaha ugu hurdo wanaagsan baa la yidhaha ma ku soo noqon lahayd halkan haddaan heleelayo aan halkan ama shaqadii wixii isku heleelayo halkaasa guri yar ka dhisala bartaasaan ma waan dhaafeenba waxyaabaha inta badan badaha kale caalamka aan laga helin ee baddani ay leedahay waxaa ka mid ah shabagan xalay baanu dhigannay quraacdayadii saaka iyo qadadayadii maantaba halkan ay ka soo baxaysaa haddii aan la yidhaahdo uma baahnid inaad badweynta geysatid shabagga si aad kalluun u heshid shabaggii waa ka halkan yaalla waxaanu sugaynaa un raggeedii waa raggii yaqaanay sida shabagga loo soo saaro inay mar dhow noo yimaadaan oo deedna wixii ilaahay nooga calfay halkaanu ka helno bashiirow bal hadda ka warran shabagga halkan la dhiganayo dee xeebta ee deedna aad soo jiidanaysid 12 meters 12 meters 12 metr kalluun laga soo jiidanayo shabaqiisa ku jira xagee laga maqlay waa kaa idiin muuqda maad soo yara egtid bashir intay noogu jirtaa qadada iyo cashada garantiid waay may quraacdana wax baanu ka heli laynay may quraacda canjeeli waxaan loo sameeyey suqaar beer hilib beer geel beer kalluun baan filayay beer geel maanta ha waa isku dayee waxaa kaloo cajiiba sida ay nadiif u yihiin biyaha baddani shabaggii weli waxba kama dhex arko laakiin badda hoos ugu jiraa hadda waa 7 subaxnimo shabagga aad soo aragteene xeebtaag yaalla ka sokow waxaa jira shabag kale oo shalay nimankan odayaashii ay geeyeen xagga biyaha hore iminkay laashkan ku doonayaan oo deedna ay eegayaan bal hadda shabaggaasna wixii kalluun u galay walaal magacaa waxaa la yidhaha cabdiraxmaan axmed yuusuf cabdiraxmaan oo markaa shabagga ilaa halkee gaadhsiiseen waxaanu gaadhsiinay biyaha ilaa 40 baac meelaha ilaa 50 baac aad umaana sii fogeynin markaa laashkaanu doonaynaa istaag laguma baari karo inaanu laashka markaa ku doonnaa maanu doonaynaa maadaama oo meesha aanay marsa lahayna waxaan lagu kaliftay inaanu baddu si aanay nooga jijabin inaanu dabadda u soo lamalagdeenna laashkii mashiinkiina ka furno aanu barraxa dhigno waad arkaysaan oo ka xagga mashiinkina yaalla markaa mashiinka markaa badda gelaysaan baa ku rakibtaan miya markaanu badda gelayno maanu ku rakibno maadaama aanay meesha marsa lahayn oo biyaa loo dhex dayn karaynin laashkii markaanu iminka lamalagdeyno oo rogrogaynaa mashiinkii baa lagu xidhayaa saasaanu shabaagtii ku doonaynaayo wixii kalluun galay iyo wixii wax galay baan ka soo saaraynaa marka rajo intee lag baa ka qabtaan saaka inaynu kalluun badan soo heli doonno kolley rajo wanaagsan baanu ka qabnaa maadaama meesha ay shacabley tahay oo aadna kalluunku ugu badan yahay rajo fiican baanu ka qabnaa wiiggii mise gooroo kalaa markaa badda gashaanoo kalluun aad doonataan maalin dhaaf aanu galaaba maalin keliya maanu ka nagaanaaba maalin markaanu nasanno ee wixii noo galay aanu iska yaro maalin labaad waanu ku jiraa badda ma halkanubaa markaa ku jalamsataan mise meelaha kalena waa u iibgeysaan hadduu kalluunku badan yahay waa loo iibgeeyaa meelaha kalena waa loo iibgeeyaa waa loo iibgeeyaa ganacsiguna wuu noo furan yahay inta badan laakiin waanu cunnaa inta badan waanu cunnaa maadaama meeshu ay xeeb tahay oo ay nafaqada ku yar tahay waanu iska cunnaa kalluunka markaa dee ma la baranayaa bay kula tahay in manaafacaadka badda laga faa'iidaysto haa qalabkii inkastoo qalabka xoog nooga kala dhiman yahay haddana dee xabaddana imika noo socoto intii kale waa naga fadhiyaan xabaddani si wanaagsan bay noo gaadhaayo waa laga faa'iidaysanaya marka dadka sidii hore aad iyo aad bay uga fiican yihiin sida ganacsiga badda iyo shaqada bal waayahay dee annana halkan aan idinku sii yara sugaynaaye haddaanan dabaalba idinku iman anigu dee bal mashiinka inoo saaro oo wixii ilaahay inooga calfay inooga soo saara waxaan u baahannahay imika baalkanaa la gelinaya meesha markaa dabeetana lagu shaqo tegayaa de bal waaye saara hadda aan eegna saa u saartaane haddii
haddii aad u haysatay in laash walba injiinku marka hore saaran yahay oo iskaga rakiban yahay sana looga furaa dadna markaad u baahatana waa lagu xidhaa qaar uu ku rakibay way jiraan waa ka dhexda ka saaran yahay oo aan laakiin dabasaar marka dabasaar laakiin waxa la sheegay inay jiraan qaar kale oo injiinku uu gudaha ugu yaalo laakiin noocan dabasaar baa loo yaqaanaa sa la sheegay sida idin muuqata mishiinkanina waa mid culus oo markaa 4 qof u baahan in laashka ay saaraan oo laguma shubaba sidiisaba laguma shubo dibadda ku qaadanaya oo farsamadan ma idinka ugu talagalay mise saasa loo soo sameeyay marka horeba taangi original buu leeyahay haya taangiisa markuu xumaaday shirkaankana taangi oo taangigu markaa wuxuu qaataa halkan bannaan imika cagadu ay ku jirto haya oo markaa taangigiisu dee aad buu uga weeyay intan cagadu ay ku jirto maya waa intan 30 litir taangigiisu caadiga ilaa halkee buu ku gaadhaya markaa 30 litir 30 litir dee berbero geynaya ilaa berbero ku gaadhaya hayo chica 15 khaylo nooc shidaalka tashiilaya haya waa farsamo Soomaali cajiiba waa farsamo Soomaali cajiiba sida arkaysaan cagadaas loo sanceeyay si shidaalka loogu shubo manaafataa markaa soo batrool waa batrool iyo saliidin isku jirto qaadanaya saliidin meel kale oo ku qaato ma laha batroolku ma loogu daro haya litir loogu daro laashkani markaa waxaad ilaa berbero ku gaadhaya intaa halkee ugu fogay ku tagteen ilaa 100 kilomitir wallahi aad buu dheeraynaya laakiin waxay ku xidhan tahay hadba fudaydkiisa haddii qof kaliya wataan 100 kilomitir iyo ka badan buu jaraya laakiin haddii xoog loo raro 50 kilomitir buu soconaya oo dee jiinkii baa 15 hoos baawar oo aan baawar badan lahayn marka halkan imkana waxa ku qaalisan ka 15 hoos baawara ka 40 hoos baawarihi uu jaban yahay sababtuna waxa weeye maadaama wadankii batroolkii waxa qaali yihiin kan batroolka tashiilaya xaqii dhaqaalaha ku fiican bay dadku doonayaan muxuu yahay marka qoriga uu imka soo qaadaya biinkii marka saa loo soo dalaco ku haynayay biin buu leeyahay Cabsalaan oo biin qabto marka saa loo soo dalaco motorka biinkii baa ka dhacay oo badda naga dhex dhacay bari uu ila qalibmay aniga oo uu nagu foorarsaday maalintii noogu darnayd waxay ahayd annaga oo aan weli dabaasha baranin yaa 2005 ayaa badda oo aan sidan ahayn xoog u kacsan ayuu isla kaayay rogay laashku uu nagu foor oo u qalibmaa miya isaga warida u qalibmaa anaguna markaa darawal gaadhi baan ahay laakiin darawal laash markaa ma noqonin waxaan isiriyoon waa sidii gaadhiga oo aad ka kaxaysan kartaa mowjadahana sida goolada loo galo oo kale gaadhigu uu galo kale si gidsan baa loo galaa dabeetana dhinacna lama siiyo mowjada dhinac lama siiyo ama tooskaasa loo qaabilaa haddii aad ka soo baxaysana xagga dambe toosuma looga soo baxa anna dhinac baan u galo deetana dhinacayga ka dhufatay iyadoo tii sidaa ii sii foorisay bay tukalana oo degdegina halkan ka samaysantay dee oo ilaahay wadaayo iyana uu nagu afrugmaday markaa 5 nin baan hayno inta yada kale in yar baan garanayna laakiin nin baa dhagax hayso xajar oo degay waa sida dadka qaare ninkii dabeetana halka daloolka imka aad arkaysid daloolka taasa ilaahay faraha ugu hagaajiyay laashkana sidii gurigii oo kale ugu foornaa badda uu iska haystay dabeetana laashkina mowjadii baa soo waday ninkii maanan tibin anagu naxdintii de inta yadii kale ma baanan bixbay noqotay dabeetana 2 nin oo noogu xariifsanaa markiiba way soo dabaasheen laashkii oo fooray xaqii kale guriciide xaqani waxay xigtaa badii ma garanaysa xaqa kale ka fuulay aniga iyo nin kalena oo aan xoog dabaasha u garanayna waan soo gaadhiba weynay waanu soconaa maayaduna wayna reebaysaa dabeetana ninkii kale wuxuu yidhi xagga berigaan anagu dabaalanaya oo aan iskhilaafnay laashkiina dhinac buu yara socdaa kulli qofkii badda galay uu fahmayaa markii maayadi jirto dhinac buu yara socdaa shayga badda ku qarraqma oo toos uma soo baxo aniguna xaggii laashkii baan ka daba tegey nin baa xadhig ii keenay dabeetana intuu markuu arkay aanu dhaqaaqaynin dee ayuu xadhig la soo dabaashay nimankii laashka fulay ninkanaa ka mid ahaa laashka qudhiis wuxuu doonayaa in la yaro riixo gacan keliyaan anuu ku riixi karayaa cabdiraxmaan baa noo raacay qoladan noo safarka tegaysa oo bal hadda siday shawiga u soo saarayaan isaguna soo duubi doona
ليش مسيك عودوا والله هروض على الجوال هذا الريحه ليش ليش لا هذا بقى هيا بقى هيا واتاي سالنتي عبد الرحمن يرو كبر ما كابان كودا با يغير دوبنايا adigu inoo sii raac kan ninka afraadna jambiga kaga booday قف الواوي قف الواوي قف الواوي وقر تبعنا وقر تبعنا قف الكوكوبيك هذا الكوكوبيك قف الواوي قف الواوي وقر تبعنا وقر تبعنا قف العقوب هذا الكوكوبيك وكاسو كله قف الواوي قف الواوي وقر تبعنا هذا الكوكوبيك هذا الكوكوبيك هذا الكوكوبيك هذا الكوكوبيك هذا الكوكوبيك هذا الكوكوبيك قف الواوي وقر تبعنا هذا الكوكوبيك هذا الكوكوبيك هذا الكوكوبيك الكوكوبيك يعني جسرته وتا arkaysaan shabaga wixii xalay noo galay ugu soo horbaxay wuxuu noqday libaxa dhashiisa waa kaas waa libaxyo yar iyo kalluumo kale caadi ah maanta markaa quraacdeedii iyo qadadiiba way is saaran yihiin waa stinkfish kan maxaa la yidhaahdaa waxaa la carabi ya waxaa la kalluunka carabi la carabi waa kalluunka kuna foobale kalluun cad farxa markan turb la turb maxaa tahay farxa markan maxaa la yidhaahdaa turb turb ha kani waa ilaa 6-7 kiilo uu noqonayaa bay la tahay ilaa 6-7 kiilo ayuu noqonayaa kani kani waa quraacdii saaka laakiin waxaan u malaynayaa inaa cid kale ila wadaagi doonin saaka saan u gaajoonayo libax badeedkan dhashaa isaga dirqibaaba lagu qaadayaa sida qiyaasay waa ilaa 12 kiilo aad iyo aad buu culusiyey kan waxaan u malaynayaa cid kale inay la wadaagi doonto aanu qadada u dhiganayno waa arkaysaan kii khaalid waa kaa shaqadiisii qabsaday ee kalluunkii badda laga soo saaray ku sii wada halkii aanu ku dubanaynay haddii aan la yidhaahdo waa kaa shaqadiisii qabsanaya oo xaabadiibuu isaguna soo gurayaa deedna xaabada waxaanu la tegaynaa halkii xalay iyo habeen horeba dabku nooga shidhnaa waa kaas bashiirna waa kaa shaqaystay bashiir sidee loo samaynayaa markaa dabkaan shidayna marka waxaan sameynaynaa barbecue kushiin ha la dubaya hadda waa farsamadaada in badan baad ii sheegtay inaad arrimahan aad u taqaanid farsamadaadaan eegaynaa kushiinka wuu yaallaa halkan dabka wuu yaallaa kalluunka wuu yaallaa adiga 15 daqiiqa gudaheed qadada diyaar waa quraacda diyaar wey ka boodna saaki maanta isaga kaaya dhigaya inuu yahay khabiir xagga kitchenka ama cunto karinta ayaa wuxuu ii sheegay waxaasoo xaabo oo arkaysaan inaanay ku fillayn halkana tiir buu ka taagay siduu ii sheegay malaa tiir kaloo halkaa ku taagayaa bal haddaynu eegno farsamadu la yimaado inta haddaba quraacda lanoo diyaarinayo ayaa ninkii maxamed miyir ee fanaanka ahaa badda agteeda wuxuu ku duubayaa hees gaar ah oo intii halkan aanu joognay ugu talagalay magaaladan iyo deegaankan bulxaar bal isagana aan la dhegaysanay inta quraacdu ay inoo sii diyaar garoobayso
الدورة بدل القرآن والشديد وعلى شديد وعلى والحرب دورة بدل القرآن على بدل القرآن شديد وعلى شديد وعلى وكما البغضة نجدوا كما البغضة لكما الدعاء مرخبي الضلالة مال البغضة بلكم الدعاء مال البغضة بلكم الدعاء برخدي الضلالة برخدي الضلالة الدولة بدي البرهانة
talo caadidan tumanayo maxamed miir alaabtaas wataa wadadna burbuugadii oo istumaysa iyo elektrooniga marka meesha doonta hadla tagaysaa in dabka ololkiisa uu baktiyo oo dhuxusho kaliya dhamacdii ay isku soo hadho imika khabiirkayga Bashiir uu noo sheegay in hawshu ay dhag tahay idna waa taa kalluunkii oo la habeeyey aan idinku daree kalluunka milix kumaanu darin basbaasna kumaanu darin kalluunka badda casna sida la ii sheegay waxa lagu yaqaanaa in milix badan uu iska leeyahay oo marka aan u baahnayn milix kale in lagu daro Bashiir kan daaday noogu khabiiro saadii sheegtay inta qaadanaysaa imika inuu ku bislaado 12 daqiiqadood 15 daqiiqadood ملح بسباس يو حكلنا وما باهنا ملح بسباس wax uu leeyahay mala yaanyo iyo waxa waa nature la doon ku leeyahay doona daawadayaashana waxaan uga ballan qaadayaa sidoo dhadhamayo maadaama aanay halka nagala dhadhamin kareynin inaanu iyagana u sheegno kan waa qadadii way bilawga ka maqan yaro bahalka foilka lagu duubay oo toonihiya oo marka isagana halka lagu sameeynaya ku jira foil dabka la saaraya isagana 8-9 minutes waa diyaar 8 daqiiqo ayuu isaguna qaadanayaa buur bal way intaas waxay naga badinaa hadaba gudoomiyaha wadabaalan walaal markii ugu horeysay sidan oo kale aan arko kalluuninta la soo dabay dadna anaga qudhayadu xeebta ku duwanno iminka kalluunkii laga soo rogayaa dadna anaguna miiskii wana soo diyaarinay shaqa yaryareysi ma laha miiskaygu waa kan dadna waxa lagu qabtay 6 biyood dusha laga saaray oo iyagana markaa kalluunkaan ku dhuuqayno sidaan hore idinku ballan qaadayna bal hadda sidoo dhadhamayo alaabta laga soo rogay wana la eegi doontaan Bashiir maxaad ku garanaysaa imika inuu bislaaday way and that's actually twice cooked waxaad si fiican buu karsamay miyaa إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له قد كنا مذلعن ليل فيها نقسميل والقوشة ليل فيها نقسميل والقوشة haddaba meel kastoo aad tegayso iyo muraad kastoo aad leedahay ha moogaan Ryan Travel gudoomiye hawshaydii anna intanay noqoto barnaamijka ka soo kow miiskii baa sii diyaariyey waa kaa wacdaa waa maasha Allah weeye waxyaabaha maaragtay dhulka xeebaha ma garanaysaa kalluun kale aanay Soomaalidu aqoonin laaska shabaagta shalay subax baan fiidkii baan u dhignay subaxii wataas oo kalluunkii fresha lagala soo baxay halkan aan ku dubanay de maasha Allah la jooga Cabsalaano halkan gudoomiye waxaad ii sheegtay inay tahay meesha aad ku nasato waqtigaaga firaaqada khaasatan inta duhurkii kulaylaha weli kalluun ku cunta halkan runtii maanta igu horeysa kalluun halka ku cuno aniga oo iminka adaanku aan ku dhashay moogtay maanta oo igu horeysa iyadoo inta badii kalluunkii laga soo saaray agteeda lagu dubay
runtii ma garanay waan hore waan u cunay kalluun laakiin halkan aan joogo maanta taariikh ahaan maanta ay ugu horeysa ismaaciil markii aad yarayd aad ka caamaysay muuqaalka magaaladani lahayd siduu ahaa wallaahi maalintii hore ka wanaagsaneen cabdisalaano halkan xagaagii anagu waan ku xagaasan jirnay xabadii loo witiraan haystay tanagii aanu oran jirnay tanag subaga ee aluminiumka ka samaysnaa ayaa halkaa xarunka igu aasnaa intaan la soo baxo subaxii xabadeeda kalluunka ayaan madax yar marayaa halkaasaan dabeetana caagid biyo oo habeenkii qabowdayna aan cabbi jiray dadka maanta jooga wax laalo waxay badan kala soo baxayaan ma jiro marka anagu noloshaasaan ku soo kordhnay oo dee ma garanaysaa bii'addu way ka wanaagsanayd oo dadku dad ma garanaysaa ilmaha yari wuxuu taragelin jiray inuu noolaado kulankaanu soo goran jirnay maxaan ku raahdaa halkan timir baa nooga bixi jirtay kalluunkiyo farashaanu haysanay maanta wixii wax laalo wax ka jira ma jira cabdisalaam way waa kan bashiir iyo saaxiibkiina ay haddana kalluunkii keeneen kana waa kii ku duubnaa foilka miya kalluunkani waa tuuna siduu bashiir ii sheegay bal hadda aan eegno kani siduu u bislaaday waxaanu rajo badan ka qabnaa inuu kani si fiican u bislaaday You need to taste that first. No sugar, no salt, nothing. Shake it. aad iyo aad buu macaan maasha allah cali kaa dhammayn mayno cali dheeroo kamarada duubaya ayaan leey kaa dhammayn mayno intaada waa kuu reebaynaa xogaya sidaan idiin sheegay cali waa kamarada duubayo wuxuu leeyahy weli waxbaa ku haray dee annaan ku soo biire cali yaa lagaa dhammaysan sidaan idiin sheegay cali waa kamarada duubayo wuxuu leeyahy weli waxbaa ku haray dee annaan ku soo biire cali yaa lagaa dhammaysan You're talking about yellow. waxaad cuntay yellow fin tuna. $1,000, $100 kilo. $100 kilo, yes. waa kan Japanese ay sushi ka samaystaan halkana in the Sahel area dadka kalluumaysatada waxay siisaa dadka waxay dhahaan waar kalluun ma hayne for example ma waxle waar calow kalluun isoo xor waa doonta mugta markaas waxle waar kalluun ma hayne kuwa qaado waa tuunada waa sheekay marka halkan waxaad leedahay waa nooca ugu liita free waay tuunada waa tan ugu raqiisan berbera marketkeeda markaa tagto deegaankan ay ku taalo magaalada Bulxaar waxaa laga yaabaa dad fara badan oo barnaamijkan daawanaya inay marar fara badan dhageysteen heeso deegaankan ka hadlaya laakiin deegaankii aanay isu garanaynin heesaha bashiirow heese aad iyo aad caan u ah oo ay qaadaan fanaaniinta waaweyn ee Soomaalidu ayaa deegaankan ka hadlaya iyo quruxdiisa waxba ka taqaanaa maya waxba ka aqaan laakiin ganayna inta ka imaado ogaa abwaanka xasan ganay intuu ka imaaday oo heeso badan oo ka tiri cimilada tan iyo dhulkan aan joogna hadda waa huba bashiir qudhiisu ilaa shalay ilaa daraad intii aan halkan joognay wuu aad u dhegay arrimaha laakiin haddaan idiin sheego imika waxaanu yara sugaynaa in guddoomiyihii degmada Bulxaar deedna waxaanu amba bixi doonaa deegaamada heesaha inta badan aa ku maqasheen haddaad maqasho heesta xasan aan samatar iyo allah u naxariistee magool dalsankii wiriiro xilliguu ku di'i jiraaye dambarsamuhu ku onkoday darantana ugbaatay oo ramad ku dayr dhaalay heesta haddaad maqashay meel aan inaga dheerayn waan waxba jirin weeye wiriir deedna xaliimo khaliif magool ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo beydka ay qaadaa iyana waxay tahaa demis oo barwaaqaa demisna waxaa la ii sheegay inay tahay aagaan iyaduna halkan ka dheerayn labadaba waynu tegaynaa magaaladan Bulxaar markaad dhinacan bariga uga yara dhaqaaqdana waxaa la ii sheegay inuu ku yaallo dooxa waaheen
dooxaasoo heesta axmed cali cigaaliya ay wada qaadaan khasra daahir halku dooxa waa heen bad waqooyi kaga daro waa adigu ha kula tago wallahaana kugu raran halkaa dooxa waa heen waa doox aad iyo aad u weyn oo badda kaga daro ayaa haddii aan la yidhaahdo iyana goordhow aynu istaagi doonaa marka waxaan hubaa mararka dambe aad maqasho labadaa heesood inaad garanayso deegaankay ka hadlayaan